بسم الله الرحمن الرحيم دمان انتنا داwanaysa magacayga waa Shamso sheegay oo idinkan soo hadlaysa magaalada Copenhagen halkan waxa ila fadhiya caawa asaasayaasha urur la yiraahdo Tusmo afar dumar oo kamid ah asaasayaasha dumarka ayagan ku weydiin asaasayaasha maxaa la yiraahdaa organizationka ama ururka Khadiijo Faadumo Raxmo iyo Saamiya marka ayagan ku wareejinaya sawirka walaalayaal dhammaan ku soo dhawaada telefishinkan toos u socdo oo Facebook oo aan ka soo deynayno maxaa la yiraahdaa bogeena Tusmo qodgiiwning marka waa Khadiija Faaduma Raxmo iyo Saamiya marka si isugu xigaan ayaan ka bilaabayaa fadlan magaciina shaqada qabataan iyo organizationka waxaad shaqada ka qabataan ma noo sheegi kartaa Saamiya magacaygu waa Saamiya ururkan waxaan ka shaqeeyaa arrimaha la xiriira marka la yiraahdo ma garanaysaa qayniskaabka amba waxa weeye ma garanaysaa waa lacag hayaha amba khasnajiga sidayda kalena waxaan ka shaqeeyaa iskuul waxaan ahay macallin بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Raxma waxaan ahay waxbarashada waxa weeyaan kalkaaliso imkana waxaan qaataa waxay la oran jiray fayadhowrka Soomaaliya halkana la yiraahdo public health amba falka Swedenscape master ururkanna waxa aan ka qabtaa wixii caafimaadka ku saabsan ee aan dadka ka caawin karayo sidoo kale waxa taa ku xigeenka ku xigeenka gudoomiyaha waxa la yiraahdaa ururka anigu waxaan leeyahay Faadumo Sheekh Cali waxaan ahay dhakhtarad oo baratay cilmiga cudurrada dhimirka marka aniga ilaa maanta ayaa waxaan ahay gudoomiyaha ururka Tusmo maanta shir weyn aan qabnay ayaan ku wareejiyay shaqada Saamiya oo hadda la wareegtay oo hadda maanta la wareegtay iyo Khadiija ayaa la yiraahdaa waxaan bartay social worker ama social advisor ururka waxaan ka qabtaa waxa kamida la taliyaha arrimaha bulshada iyo qoysaska iyo waxyaabaha ku saabsan dhalinyarada iyo suuqa shaqada Faadumo haddaan ku weydiiyo waa maxay ururka Tusmo muxuu qabtaa ururka Tusmo waa urur lix dumar Soomaali oo is aruursaday ay bilaabeen oo markaa kadibna rag ayaa nagu soo biiray laakiin waxaan ahayn 6 gabdhood oo Soomaali oo wada degan Copenhagen oo fahmay in dhibaato badan ay haysato qoysaska Soomaalida ee magaalada degan dad badan oo dhimirka ka xanuunsanaa dhalinyaro badan oo xabsiyada la geeyay dhalinyaro badan oo criminal noqday dambiyo badan galay oo daraaga bartay iyo waxaan aragnay caawinaad dad u baahan yihiin dadkaas inayna helaynin marka anaga mas'uul isi saarnay waxaan ka koobanahay cilmi walba ayaa ku jira groupka waxaan mas'uul isku saaran dadka Soomaalida inaan u shaqeyno oo waliba aan ugu shaqeyno af Soomaaliga wax kale ma dareysan haddaan intaa ku daro waxa weeyaan ururka siday Faadumo ba sheegtay waxa weeyaan urur tala bixin uun ma aha laakiin waa gacan qabasho haddii lacag qof uu u baahdo in meel la tago amba arrin ku akirmay meesha rabtaba ha ka gashay uu u baahan yahay qof walaalkii ah oo afkiisa kale ku hadlayo oo arrinka la fahma oo garabkiisa noqda ayaa ururku waxa loo sameeyay in dadka Soomaaliyeed ee tala u baahan ama taageero u baahan aanu garab istaagno wuxuu ururkan ururada kale uu kaga duwan yahay waa urur ay ku kulmeen dhammaan maxaa la yiraahdaa dad wax bartay oo kala duwan oo waxbarashooyin kala badan kala duwan leh kala duwanaanshahaas oo keenaya in haddii mesela loo baahdo arrin caruurta ku saabsan macallimiintii la hayo oo bedago amba dadka caruurta bartay la helayo oo qofkii ka tala bixiya haddii xagga caafimaadka ahaan lahayd qof case dhakhaatiirta ay isfahmi waayaan sidoo kale xagga socialka oo problem weyn naga haysto oo ahayd tii markii ugu horeysayba aanu dareenay dadka maaragtay aan ururkaba u sameynay waxa nagu jira kuwa waxa kamid ah dad badan oo soo bartay xagga arrimaha qoysaska iyo bulshada oo markaa iyagu halkan diyaar ugu ah inay walaalahooda ay gacan qabtaan mid kale tala bixintu cid kasta u baahan qof kasta marbu tala bixin u baahdaa laakiin tala bixintii haddii aad afkaaga ku weydo marmarka qaar aad bay u xun tahay waayo qofka aad talada u raadsanaysa baa diidaan isfahmaynin marka waxaanu aragnay in dad badan oo Soomaali ah ay
mararka qaar ay waayaan gacan qabasho iyo maaragtay tala af soomaali ku baxaysa saas aawadeed baa ururka loo sameeyey marka waa waxaan ku kordhin lahaa runtii waxa weeye mushkilad markaad wadan ka timaadid dagaal iyo dhibaato jirto waalidkaada jeer waxaa ku dhacaa inay maaragtay culays badan saaraan sidii caruurtooda kalgacal iyo nolol iyo wanaag ay u siin lahaayeen laakiin markay suurtageli weydo waayo qofkii waalidka waxaa laga yaabaa inuu af cusub la kulmo inuu maaragtay hawo iyo jawi aanu hore u aqoonin markaa waxaa dhacay af iyo dhaqan cusub waxaa dhacday waalid fara badan inay caruurtoodii iswaayeen sababtoo ah ilmahani dhaqankii uu ku soo koray iyo kanuu maanta joogo isfaham la-aan ayaa dhacday taasina waxay keentaa in la kala booday oo markay dhallinyaradu xilliga aynu oran jirnay kurayda amba maaragtay dee ay caruurtu roonroonaadeen in isafdhaaf yimid isafdhaafkaasina wuxuu keenaya in caruurtii qaar fara badan waxbarashadii noloshii ka xumaato ay yimaadaan nasiib darro caruur fara badan oo dhalayo wiilal iyo gabdhaba leh inay qaarkood jeelasha ku jiraan markaas si inta maanta dhibaatadu haysatana aan uga caawino kuwa dambana aanay ugu dhicin ayaan rabnaa waxyaalahan la yidhaahdo sidaynu aynu uga hortagnaa dhibaatooyinka maanta ina haysta marka taasaa keenaysa inaanu ku tala jirno koorasyo waalidka iminka dhalinyarada yaryar haysta iyo kuwa iminka intay guursadeen iyagana aan dhibaatadooda haddii aan iminka ka taxadirin oona ka hortagin ay berri la kulmi doonaan waayo caruurtani iyagu may imanin keligood halkan waalidkii keenay waa inay mas-uuliyad qaadaan waa inay ogaadaan dhibaatooyinka caruurtan haysta waayo wadankii markaynu joogno af gooniya iyo diin gooniya la haystay laakiin maanta waa la kala fog yahay mahadsanid saamiya حتى هذا statistic wuxuu tusay ciyaal badan oo Soomaaliyeed inay jeelasha ka buuxaan socialinti waxay noo sheegeen statistically inay caruurta Soomaaliyeed hadda ay ku soo biireen banda milyan taasina waa dhibaato miidhan banda milyan waxa weeye maxaa la yiraahdaa gruubyadan kriminaalka ah ee dadka ajnabigu iyagu ay aasaaseen oo kamid ah matalan loyal to familia iyo waxyaabaha lamida socialinti waxay noo sheegeen inay dhibaato tahay sidii waalidkii Soomaaliyeed loola xiriiri lahaa taasoo keentay inay caruurtooda aanay caawin karin maadaama iyagu ay afkii ku adag yahay ay arrimaha bulshada aanay la socon sharciga aanay la socon marka taasina waxay u fududeynaysaa ciyaalku inay waalidkooda khiyaameeyaan taasina way dhacdaa Soomaalidu kaliya maaha laakiintii waxaa nasiib darro inay Soomaalidu ciyaalkii Soomaalidu groupka ay ku bateen sida awgeed waxaan jecelahay inaan ka hortagno inaan ka caawino siday macaawino weydiistaan dawladda intaanay dhibaatadu dhicin Danish waxay yiraahdaan waxa la yiraahdaa forbugilsa ayaa jira in laga hortago dhibaatadu intaanay sii weynaan sharciyo fara badan baa jira oo waalidka laga caawiyo laakiin nasiib darro waxa ah dadkeena Soomaaliyeed waanu ka baqanaa socialka haddii social la maqla waxaa la odhanayaa ilmihii baa laga qaadaya kan dhibaataysanna marka taa haddaad ka baqatid ka dhibaataysanna ma caawinaysid kuwa soo korayana laga yaaba inay dariiqin ay maraan marka waxaa fiican macaawinada jirta iyo meelaha laga doonto inaan dadka ka caawino si aanay dhibaatadu u sii fidin mahadsanid dan iyar ku daro waxaan ku dari lahaa ururku wuxuu dhowrayaa xuquuqda qofka kasoo doonta maaragtay talada iyo tusaalaha iyadoo aan ku shaqeynayno waxa Denmark loo yaqaano Tavshilpligt ama xabka xilqarinta waxaan nimanka u sheegayaa bulshadeena waxa ku badan in la kala baqdo oo qofku problemkiisa halkii uu caawimo ka raadsan lahaa sida Khadiija sheegtay oo wixii qarsado dawladdiina ka qarsado dadkii walaalihiina ka qarsado marka waxaan si cad ugu sheegaynaa ururku ugu sheegayaa maxaa la yiraahdaa dadku la talinayo dadku wax u qabanayo qof uu isagu qofkaas u sheegay mooyaane in ay mamnuuc naga tahay in qof kale warkiisa qof kale loo sheego marka iyagoo ku kalsoon walaalahayaga Soomaalida in ururkan loo furay oo dad walaalahooda afkooda kala ku hadlaya ku fuleen ay ku soo dhawaanayaan oo xilqarin buuxda waxa kaliya ku darsan lahay waxaan ogaanay inay jiraan qoysas badan oo caruur haayo wiilal iyo gabdho waaweyn oo dhimirka ka xanuunsaday oo aan dhaqaatiir u tagaynin oo caawinaad raadsanayeen waxa kale oo ogaanay dhalinyaro badan in dalkii loo celiyo markay xanuunsadaan in la yiraahdo dalkii la geynaa taas waxay ku tusaysaa in maaragtay ama laga ceeb la tahay qof xanuunsatay ama laga cabsanaa systemkii in caawinaad la raadsado marka hadda anaga waxa barnaamijka noogu jirto group
waxaan sameynay oo iskaa wax u qabsan raba inay nagula shaqeeyaan waxaan u sameynay program oo ah koorso ah oo dhinac walba xagga caafimaadka xagga socialka aan tababar u sameynayno marka waxaan rabnaa dadka inaan guryaha ugu tagno waxaa la og yahay inay joogaan qoysas badan oo gurigooda ku haya xataa ilmihii ama dhalinyaradii xanuunsanaysay marka shaqo badanaan hortaala laakiin niyadaan u haynaa ilaa haddana bulshada soomaalida oo Copenhagen si aad u fiican ay noo soo dhaweysay marka waxaan rajaynaynaa inay miro badan ka soo baxdo oo fiican shaqada tusmo mahadsanid haddaan idin weydiiyo ururka muddo intee la-eg ayuu soo jiray waxaan soo jirnaa ilaa 2 sano hadda halkee ka howlgashaan waxaan xafiiskeyna waxa waaye Norpro meel la dhaho Muhabet oo ah club ama cafe oo dadka ajnabiga oo xoogaa dhimirka ka xanuunsana loogu talagalay qof walba imaan karto albaabka laga soo galaa lacag kuma fadhiso annagana badi waxaan joognaa halkan sabtiyada laakiin waxaan qori doonaa website-keyna markaan sameynaan ku qori doonaa teleefankeyna iyo sida nagula helo iyo facebookna waa gelinayna facebookna waa gelinaynaa ururkuna wuxuu ku shaqeeyaa waxa weeye waa iskaa wuxuu qabso sax oo ma aha urur dee aanu lacag ku qaadano waa un waxaanu hor ilaahay maaragtay iyo dadkayga baahan ee Soomaaliyeed aanu rabno inaanu qabanno marka taasina dadku madaxa ku hayaan waayo anagu sida aan waqti aanu dee guryaha iyaga uga nimid baanu jeclaan lahayn in dad fara badan oo iskaa wax u qabso oo gacan ambaha iyo maalin ambaha noqoto saacado go'an haddii ay karayaan inay dee nala soo xidhiidhaan ururka oo wixii maaragtay xirfadaha ay leeyihiin noocay doontaba ha noqoto waxbarashada inay na gacan siiyaan waa mahadsantihiin dhammaan aad iyo aad ayaan idinkaga mahadnaqayaa halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu